barasaabka gobolka Hawd Axmed Yaasiin Maxamed Faarax iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay deegaanka ina cunaaye ee gobolka Hawd maamulka siyaasiyiinta waxgaradka odayaasha culimada dhalinyarada iyo haweenka ku dhaqan deegaanka ina cunaaye ee gobolka Hawd ayaan maanta u kala harin soo dhaweynta barasaabka gobolka Hawd iyo wafdigan uu hogaaminayay ee kormeerka shaqo ku yimid deegaanka ina cunaaye ee gobolka Hawd bulshada kala duwan ee deegaanka ina cunaaye ayaa barasaabka gobolka Hawd iyo wafdigan uu hogaaminayay markii ay soo gaareen gudaha magaalada ina cunaaye waxa uu galbiyeen madal aad u qurux badan oo loo asteeyay xafladda soo dhaweynta wafdigani waxaana uu horeyn xafladdaasi hadalla soo dhaweyn iyo mahadnaq iskugu jira ka jeediyay xubno ka mid ah maamulka waxgaradka iyo odayaasha deegaanka ina cunaaye ee gobolka Hawd halkan waxaan maanta ku soo dhaweynaynaa barasaabka cusub ee noo yimid haddaanu nahay reer ina cunaaye waa barasaabkii koobaad ee si qurux badan noo soo dhex fadhiistay barasaab soo dhawow baanu ku leenahay 100 jeer soo dhawow barasaabka cusub waxaan leeyahay soo dhawow aad baan ku soo dhaweynaynaa marka ugu horeysa horta waxaan soo dhaweynaynaa wafdiga uu hogaaminaya barasaabku gacmo furan baan kugu soo dhaweynaa Axmed Yaasiinow waxaanu mahadnaqaynaa wafdiga ballaaran ee uu hogaaminayo barasaabka gobolka si aad iyo aad u qaaliya ayaanu idin soo dhaweynaynaa haddaanu nahay magaalada ina cunaaye madaxda uu hogaaminayo barasaabka cusub waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan dhammaantiin waxaan ku soo dhaweynaynaa magaalada ina cunaaye aad iyo aad baan ku idin soo dhaweynaynaa waa idinku ducaynaynaa xilka waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen maayirka degmada Balligubadle Maxamed Cabdi Maxamed Shiine gudoomiyaha maxkamadda gobol degmo ee gobolka Hawd Sheekh Cabdullaahi Maxamuud Cabdi iyo isku duwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ee gobolka Hawd Axmed Cali Dariise iyo siyaasi Cabdi Haybe Maxamed waxaanu idinku mahadnaqaynaa maanta macsuumaadda aad samayseen barisaabkiina cusbaa u samayseen haddaad tihiin haddii maayo magaaladii ina cunaaye aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waxaan aad ugu mahadnaqayaa maxamed Shiciiro horta ee maanta kulankeennan aynu isugu nimay halkan sabab u ah in halkan la isugu yimaado oo kulankan ka dhaco maxamed Shiciir aad baan ugu mahadnaqayaa garashadiisa iyo sidoo agaasimiyay sidoo soo abaabulay maanta kulankeen waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Ilaahay weyn subhanahu wa ta'ala iyo maanta halkan lagu kulmiyay waxaan marka labaadna u mahadnaqayaa bulshooyinta reer cunaaye oo sidii lagu yaqiinay martisoorka waajibkoodii u gutay anagu diyaar waxaan u nahay in aanu wixii baahiyo kulba jiray inuu dabooli karano inaanu daboolno waan soo dhaweynaynaa barasaabka cusub ee gobolka Hawd imaka MCH-kan aanu dhisnay 3 hablood ka shaqeeya iyo gabadh nadiifisa tuulooyinka ku xeeran ilaa 12 tuulo oo lagu daweeyay marka waxa doonaya gudoomiyaha u fiiray yarato gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Hawd Axmed Yaasiin Maxamed Faarax waxaanu u mahadnaqay bulshadii kala duwaneyd ee ku soo dhaweysay deegaanka ina cunaaye ee gobolka Hawd aad baad u mahadsantihiin soo dhaweyntiina aad ka u ballaaran ilaa saaka 8 subaxnimo aad nala sugayseen aad baan iniga mahad celinaynaa kullay wuxuu daaran yahay waa isbarasho iyo isxog waraysi safarkan aan maanta inigu nimidnay tuulooyinka inta u badan iyo degmooyinkaba waan maray insha Allah inaan sajaa qaadi doonana waan rajeenayaa haddii Allah ilaaho wada shaqayn fiican aan yeelan doono baahiyahana aan wax ka qaban doono haddii Allah ilaaho insha Allah gacmo wadajir baa wax ku qabtaane si wadajir aan wax u dooni doonaa haddii Allah ilaaho geesta kale barasaabka gobolka Hawd waxa uu kormeeray isla markaasina uu u kuur galay baahiyaha ka jira xarunta caafimaadka iyo dugsiga waxbarashada deegaanka ina cunaaye ee gobolka Hawd Maxamed Shiciiro Axmed iyo Cabdinajiib Dayib Cismaan TV qaranka Soomaaliland magaalada Balligubadle